waxaan rabaa inaan ka hadlo kan yara YouTuber-ka ee la yiraahdo horta dirsan halka la tafur magaciisa dirs horta ma ay dirsan السلام عليكم جمعة مبارك وعن صاحب يال maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamij daba socda barnaamij aan halkan idinkugu soo gudbiyey muddo 4 asbuuc ah ka hor barnaamijkaas waxa uu ahaa sidaan u fahansanin dagaal ka dhaxeeya Dirisla Cabdi iyo waliba groupkan lagu magacaabo R Films saaxiib yaal waxaa laga yaabaa qaarkiin inaadan waxba ka ogeyn arrintan ama barnaamijkan qaabka aan uga hadalnay iyo qaabka ay nala ahayd aadan dhageysan bal marka hore aan dhageysano isla dhageysano barnaamijkan qaabka aan uga hadalnay kadibna bal waxaan idin soo gudbi doonaa barnaamijkan meesha uu ku dhamaaday iyo waliba inuu prank ahaa iyo in kale ishag xaqraadana lagu wadaa waan wada sheegi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo qofka aan ka cabanaynaana qof kale ma ahan waxa weeyaan ninka la yiraahdo Dirisla Cabdi weeyaan kanaalkayga ku soo meeraysanaya aan heshiis ku galnay inuu nagu wareejiyo marka hadda aan wax qof aad siisay inaad kala noqoto raganimo xumi baan u arkaa marka waxaan ku dhihi lahaa naga meerayso kor nooga bax Dirisla waxba nagu soo wareegaysanina assalaamu alaykum waan saaxiibada sharafta leh maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamij laga yaabo qaarkiin inaad aad wada ogtihiin intiina ku jirta baraha bulshada gaar ahaan YouTube qaarkiin laga yaabo inaadan ogeen barnaamijkaas wali barnaamijkaas wuxuu yahay dagaal ka dhaxeeya raggan ama groupkan lagu magacaabo R Films iyo waliba YouTuberka Dirisla Cabdi saaxiib yaal qaarkiin waxaa laga yaabaa inaadan waxba ka ogeen barnaamijkan isaga ah iyo waliba groupkan lagu magacaabo R Films balse haddaan si fudud idinkaga dabageeyo groupkan lagu magacaabo R Films ayaa waxay wax soo geliyaan YouTube uu leeyahay Dirisla Cabdi ama uu lahaa kaasi oo ay ku qoran tahay amaba uu ku soo galo Dirisla Soomaali muddo aan sidaas u fogeen ayay bilaabeen inay YouTube-kaas ku soo bandhigtaan riwaayado challenge iyo waxyaabo kala duwan saaxiib yaal ma jirto cid garanayso haddii YouTuberka Dirisla Cabdi uu nimankaas ka iibsaday amaba heshiis kula galay inay ka shaqeeyaan YouTube-ka iyo in kale laakiin waxaan ognahay YouTube-kaas inuusan in muddo ah isagu waxba soo dhigin marka laga reebo inuu soo share gareeyo muuqaalada ay soo dhigaan haddaba waxaan rabaa muuqaal ay iska soo duubeen nimankaas ay leeyihiin Dirisla Cabdi ayaa nagu xadgudbay ayaan rabaa inaan idinla wadaago kadibna aan isla wada eegno bal muuqaalka maanta waxaan ka hadlaynaa micnaha waxa weeyaan waa YouTuber-ka caanka micnaha kulli aad u wada taqaanaan xiriir badan oo naga dhaxeeyay Soomaaliga micnaha xiriir aad u fiican oo naga dhaxeeyay oo micnaha taqaaniin oo micnaha wallahi si xun u dhaqmay maalmahan dambe oo maalmaha baan micnaha in badan dadkan micnaha ka qareynay waxaan sameeynayo laakiin maanta waxaan rabnaa anagoo waxyaabo sameeynayaan ka soo falcelin Usman man ka soo falcelin micnaha laakiin maanta waxaan rabnaa inaad nala aragtaan dhibaatadan micnaha ومعناه نوجو هيان saaxiib yaal ninkan u hadlaya groupkan waxa uu leeyahay waad ogeedeen xiriirka in naga dhaxeeyo anaga iyo Dirisla runtii anagu waan ogeen in YouTube-kiisa aad wax soo gashay jirtiin asagana oo idin share gareyn jiray laakiin wax kale oo xiriir ah ama maxaa la yiraahdaa wax kale iibsi ama contract la wada galay ah oo aan ognahay oo aad soo bandhigteen ma jiraan saaxiib yaal bal waxaan rabaa inaan wax yar idinka maqashiyo waxyaabaha ay ka tabanayaan ninkan odaga ah ee Dirisla bal dhageysi waan ayadana una xaqray ninkaasi channelkii intaas oo dhan aan ku shaqeynay misana aan wax badan soo gelinay aad nala socoteen challenge-yaan soo gelinay filmaan soo gelinay prank-yaan soo gelinay wax walba aan soo gelinay ayuu imika dib nooga damcay taasna waa wax aad looga xumaado saaxiib yaal waxa uu leeyahay wiilkan kale waa uu naxaqiray oo channelkii oo intaas oo maxaa la yiraahdaa waxyaabo kala duwan aan soo gelinaynay ayuu dib nooga damcay runtii waxa fiicneed marka hore haddii wax la kala gatay ama contract la wada galay in bulshada aad la wadaagtaan maadaama maanta dhibta in haysata aad bulshada la wadaagaysaan bal waxyaabo kale ayay sii tabanayaan bal aan sii dhageysano ayagana
kanaalkayga kusoo meeraysanaya aan heshiis ku galnay inuu nagu wareejiyo marka hadda aan wax qof aad siisay inaad kala noqoto raganimo xumi baan u arkaa marka waxaan ku dhihi lahaa naga meerayso kor nooga bax dirisle waxbaa nagu soo wareegaysanina saaxiib yaal gabadhana waxa ay leedahay kanaalkii aadna siisay inaad dib uga daba meeraysato waxay ku tahay raganimo xumo runtii janaalkan aniga markaan arkayay ilaa hadda waxaa ku qoraa magacaas ah dirisle Soomaali haddii ay kuwan ama groupkan la wareegeen waxa ay ahayd in ay ku qortaan magacooda oo ah R Films runtii Soomaalidu waxay tiraahdaa timirba laf baa ku jirta hadalkan runtii wax baa ku jira anaga aanan garan karayn balse aan sii daawano muuqaalka ay sii wadaan dhalinyaradan iskariinka waxaa soo saari doonaa mesajadii aan WhatsApp ku wada sheekaysanay macnaha waxaan rabnaa hadan anagoo aan qaldanahay inaad qabataan idinku waad fahanteen Soomaa asxaabta macnaha inuu uu noo dhaqmo si ciyaalnima iyo sida foodleyda iyo gabdhaha iyo carruurta yaryar macnaha maxaa dhowcilu soo dhaqmaan inuu u dhaqmo Dirisle Cabdi isaga dhowciladi isaga dhowciladi waaba dhowciladi Dirisle Cabdi dhowcil matiid umka daawanaysa car dhowcil matiid ay uu soo eegayaan car dhowcil madanayn uu yahay saaxiib yaal sida aad screenka ka arkaysaan ma garan karno haddii ay tahay qoraalo sax ah oo isweydaarsadeen raggan iyo Dirisle balse kaba soo qaad inay tahay qoraalo sax ah taasna micnaheedu waxay noqonaysaa in Dirisle Cabdi uu gacanta ku hayo passwordka YouTube-kan wali sida aad halkan ama sawirkan aad ka arkaysaan muuqaalkan waxa ay soo galiyeen 3 maalin ka hor midkan kalena waxa ay soo galiyeen 1 hour ka hor xilligan aniga aan muuqaalka samaynayo taas micnaheedu waxay tahay in passwordka wali ay wada haystaan ayaga iyo Dirisleba saaxiib yaal runtii ma garan karno xaqiiqada dhabta ah ee sheekadan raggan waxay u ogyihiin rag ay arintan dhab ka tahay oo aan loo qaadan karin wax prank ama ciyaar ah saaxiib yaal barnaamijkan gabagabadiisii waxaan idinkugu sheegay in arintan aysan u ekayn arin prank ah balse ay u eg tahay mid xaqiiqo ah marka la eego ragga hadlaya wajiyadooda runtii ma jirto cid moodaysay arintan inay tahay prank laakiin maanta ayaan ogaanay xaqiiqada inay tahay ama inay ahayd prank taasna waxa inoo xaqiijiyay Dirisle Cabdi oo isaga ahaa ruuxii weerarkan ku socday bal waa kani aan daawano halka ku joojino markaan run ka hadlo waxaan dhaba prank dahay waad ka qarinaysaa laga yaabaa digsi maxaad beento noogu sheegay waxa prank ma ku madalada prank baad waxaan run baad leh waxay tiraadeen maadaama dadku la yar yaabeen prank ka dhigay waxaan dhaba prank bahayd saaxiib yaal waa inaan aaminaa oo aan rumaysanaa arintan waayo waxa hadlay mid kamida dhinacyadii halkaas ayaan ku soo gabagabeynay